السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا قدرنتا iyo qiimaha leh waa saaxiibkeena Cumar Cali oo idin soo gudbinayo muuqaalkan murugta badan meeshan waa xaafada Siigaale biyo dageenka iyo waxa way meeshan u jeedin masaajidka Online sida daraadeeda meeshan waxay ahayd hadda idin muuqato masaajidka Online waaye darbigaas dheer waxa ka dambeeyo waa warta biyihii xadka zaidka ay gudbeen ilaa ay xaafadihii ayay dhaxgaleen xaafadaha waa ujeedan luuqas markii laga baxo guriga badan ka dambeeyo sidaas daraadeeda marka bulshada Soomaaliyeed oo na daawanaya waxaan la socodsiinaynaa meeshan inay u baahan tahay wax qabad aad u xoogan inta qusayso oo wax u qabanayso bulshada Soomaaliyeed waa kaay wadadaas oo u jeedin waa laamigi waa meeshaas dadka taagan waa laamigi biyaha ay ka soo baxeen warta ay ka soo bateen ayay waxay u soo dhaafiyeen masjidka Online kadibna wuxuu soo gudbiyay soo buuxsamay asagana xaafadihii ayuu soo gudbiyay marka asxaabta qaaliga ah oo ku xiran channelkan mar walba waxaan anaga u taaganahay inaan idin soo gudbino muuqaalada kuwa farxad leh iyo kuwa murugta leh intaba waa inaan wada wadaagnaa waayo waa muuqaal aad u xanuun badan waayo meeshan shacab Soomaaliyeed ayaa ku nool oo barakacayaal ah dhankan xaafada ah meeshan u jeedin waa luuqan markii laga soo baxo biyo dageenka ilaa iyo masjidka Online waa intaas waa u jeedin waxa qashin meesha daasan waxaan xafaayadihii iyo wixii dhamaantooda marka waxa meesha hataa waxa ka dilaaci karo cudurro aad u badan ayaa ka dilaaci karo oo dhanka caafimaadka hataa uma fiicna waxaana u jeedin xafaayada ku jiro oo waxa ku jiro caagag waxay wasaq wixii warta dhan ku jireen masjidkii buuxsamay haddana waxay banaanka waa meeshan u jeedin waa banaankii waa wadadii weyneed waa wadadii weyneed waa ka luuqaas waa xaafadii oo dhan waxa guryahaas oo dhan biyo ka buuxo dadka shacabka banaanka ay macnaha waaba laga barakacay meesha waa laga barakacay aad iyo aad waa laga barakacay marka waxaan dhihi lahayn inta qusayso inay wax u qabtaan bulshada Soomaaliyeed in wax u qabtaan marka waxaan ku codsanaynaa in bulshada Soomaaliyeed wax u qabtaan masaakiintan ay soo booqdaan meesha mar walba ay la socdaan xaaladaha wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala